سلام نبضي نحريس كركينا هاتو قفكن إلا الله waa صادق ودني waxaan maanta halkan rabnaa inaan kusoo bandhigno cashiiro la xiriira dropshippingka sida ciwaankan idinka muuqato waxaad arkaysaan waxaa ku qoran maanta rabnaa inaan ka hadalno waa maxay dropshipping sidee lacag looga samayn karaa su-aashii ugu weyn waxay tahay marka ugu horeysa maxay tahay dropshipping muxuu yahay sideena lacag looga samayn karaa waxaan ku baran doonaa sida looga shaqaysto waxa loo yaqaano dropshippingka adigoo aan alaab haysan adduunka meel walba aadna ka joogto yacni adoo aan alaab haynin oo physical alaab ama alaab la taaban karo thinkable alaabaha la taaban kara adoo aan gacanta ku hayn sidee aad uga shaqayn kartaa online-ka sida eBay iyo Amazon yacni waxaan ka wadaa waa lack of inventory haddaadan inventory la'aan adoo aad ka shaqaysanaysaa sababta aad uga shaqaysanaysana waxay tahay waxaad iibinaysaa alaab qof kale uu hayo si aad commission aad uga hesho cashirkan waxaa ku jira softwareadaan isticmaali doono waxaa ka mid ah softwareka loo yaqaano Zig Analytic iyo softwareka loo yaqaano Jungle Scout waxaan ii sheeg xooga saari doonaa koorsadan ugu horeysa oo course 1ka ah Amazon to eBay sida Amazon alaab looga soo iibiyo oo eBay lagu iibsho adoo aanan alaab ku olin faa'iidadan ku xisaabtami doono waa inay ka badnaataa $5 item walba ama shay walba iyo wixii ka badan wax ka yar dee waqti la isagama dhumin karo waxaan raadinaynaa wax $5 wax ka badan $5 up ugu yaraan waa marka ugu horeysa waa inaad adiga values ku yeeshaa si aad wax u samayso haddii kale waqtiga kaa dhumaayo ganacsigan waa ganacsi furan oo u furan qof walba meesha uu adduunka ka joogo I believe inaadan u baahnayn fiisa Maraykan ah si aad uga shaqaysato Maraykanka haddii aad barato qaabka looga shaqaysto online-ka oo waddankan Maraykanka adoo caalamka meel walba ka joogo teeda kalena waxaan ku baran doonaa dadka online-ka eBay ka shaqaysta ama wax ku iibiya adduunka meelaha ay ka joogaan waa hagaag fadlan subscribe haddii aad videogan ka faa'iidaysatay iyo cashirkan oo kale si aan kula wadaagno ayagoo badan aan usoo gudbino waa Wadani Group iyo tiimkiisa waxaan idin leenahay maalinta ha idin wacnaato waxaa noo xiga waxaan u gali doonaa cashirkan gudaha u galaynaa annagoo rabna inaan waqtiga ilaalino haddana waxaan isku dayaynaa 3 meel ama 4 meel inaan wax ku baarno aan ku ogaano waa hagaag waxaan ku bilaabi doonaa shayaasha ugu muhiimsan oo ugu dheer this item here annaga waa baarnay waa la socona hadda meesha uu yaalo laakiin waxaan rabnaa iyadoo video inaan idin tusino waxaan ku dhufanaynaa itemkan ku dhufanaynaa waxaa xagga nooga soo baxay in uu qofkan yacni iibinayo alaabtan 99.62 inuu iibiyey 5 xaba inuu iibiyey waa qofkii ugu horreeyay gacanteena ku soo dhacay alaabtan is trending way socotaa hadda sidaan ka arkayno qofkan I believe inuu eBay soo galay muddo hadii 5,447 muddo wax ku iibinaya alaabta uu iibinayno sidaan ku garan karno ma lahan ii sheeg qofkii yacni qofku markuu alaabta iibinayo loogadiisa ama magaca kambanigiisu xaggan ku soo qoraa waxaasoo dhan ma laha qofkan wuxuu noo sheegaya inuu joogo Oregon laakiin laga yaabo dunida dacaladiisa inuu joogo iyadana waxaan ku baran doonaa qofkan meeshuu adduunka ka joogo oo lacagta xaggan ka samaynayo iyo lacagta inta uu faa'iido uu sameeyo waa hagaag si aan ku ogaano waxaan rabnaa ninkan intuu iibiyo waa inaan 2 methods 2 nooc ayaan u kala qaadaynaa marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan ogaano ninkan wax uu iibiyo oo manual ah si aan gacan uga ogaano waxaan tegaynaa see other items waxyaabaha kale uu iibiyaan ku dhufanaynaa markaan ku dhufanayo pagekiisa noo soo bixi dhankan bidix waxaad ku arkaysaan kanaan ka leexin dhanka bidix waxaad ku arkaysaan itemka oo conditionka aad raadinaysa muxuu yahay xaggana ku dhufanaysaa new pageka wuu isbedeli
xaggaa soo degaysa waxaad ku dhufanaysaa buy it now waxyaabaha buy it now ku iibiyey xaggana ku dhufanaysaa waad soo soconaysaa new waa kusoo dhufanay buy it now waa kusoo dhufanay waa in meesha uu ku iibinayo waa inay noqotaa US only aad ku dhufanaysaa waa soo soconaysaa new buy waan sameynay US only waan sameynay waxaad kaloo ku dhufanaysaa sold items ku dhufanaysaa dana dibaan ugu noqonaynaa sold item markaan ku dhufanay also complete itemna yani wuu soo booday waxaan rabnaa complete item waxay iska noqon kartaa 30 days gudahood haddii alaabta la iibsan kari waayo eBay way dibaadana release u sameynaysaa marabna marka waxyaabihii release la sameynay noo soo baxaan waxaan ku sameynaynaa uncheck so waxaan taabanay new waxaan taabanay buy it now waxaan taabanay US only waxaan taabanay sold item so waxaan ogaanaynaa maalmaha uu wax ninkan iibiyey March 14th maantadan March 14keeda ninkan wuxuu iibshay The Wall by Brand Fraser DVD buu xagga ku iibiyey oo $19.40 shalay wuxuu iibshay $13 bishi wuxuu iibshay $21.25 ilaa hadda ma ogsoonin waxa oo yani lacagta ugu jirta oo faa'iidada ma ogin laakiin wax xisaabi doonaa waxa kale uu iibshay $19 ama $11 $8.40 yani he's just doing it taariikhda fiiri ninkan wuxuu iibiyey tusaalahaan haddaan usoo bixino let's go back here 13 kaliya wuxuu iibiyey 1 2 3 4 5 6 so 6 shay uu iibiyey haddii 6daas shay mid walba ay ugu jirto $5 oo faa'iida ah ninkan asoo aan waxba qaban ayuu wuxuu online ka sameeyey $30 we don't know meesha adduunka ka joogo weli laakiin waxaan isku dayaynaa inaan si fiican gudaha ugu galnaan usii ogaano so we don't want to go deeply ninkan inuu dropshipper yahay automatically way noo caddahay dadka ii sheeg alaab meel kasoo gada meel kale ku iibiya waa hagaag waxaan sameynaynaa hadda dib aan u noqonaynaa waxaan isticmaali doonaa softwareradii aan rabnay inaan isticmaalo softwaradaasaan isticmaali doonaa insha allah dib aan u noqono because maanta inaan clicked ku hayno meeshan let's go back okay ninkan waa Aussie Pest magaciisa ayaan highlight ku sameynaynaa Aussie Pest waxaan raadinaynaa wuxuu yahay Aussie Pest waxaa leedahay waxaan joogaa Oregon alaabtanaad 5 pieces ka iibisay alaabo kale hadda aan xisaabaynay so who is the Aussie Pest waxaan imaan doonaa softwarekii aan idiin sheegay SIG Analyst waxaan ku dhufanaynaa competitor search dadka aan la tartamayn cidda yihiin markaan ku dhufano waxaan raadinaynaa last 30 days inta uu iibiyey waxaan ku dhufan doonaa search 30 cashi ugu dambeysay ninkan ima soo iibiyey waxaan xaggan hoose dhigi ninkan sida hadda nooga cad meeshan waxaa la leeyahay ninkan wuxuu uu sell earning 30 casho 30 dayskii ugu dambeysay wuxuu uu iibshay 6,500 ugu dhowaad ama 6,600 bal eeg ninkan hadda waxa uu joogaa waddanka la yidhaahdo Morocco xataa Maraykanka ma deganaa laakiin haddaa xagga timaado waxa uu leeyahay Aussie waxaan joogaa Oregon arrinkan meesha ku jira sirtaan ii sheeg meesha ka dambaysa waxaan jecelnahay casharadeena taxanaha inaan dib ugu soo qaadano so marka waxaa muhiim ah in la ogaado ninkan Morocco jooga ayaa Maraykanka waxa uu ka sameynayaa 6,600 bishii 30 days annaga 30 cashi kaliya ran karaynay 30 days hadduu ka sameynayo Maraykanka ninka Soomaaliya jooga ama Kenya jooga ama Ethiopia jooga gelinka shanaad ama jooga Djibouti ee Soomaaliyeed oo luqadda Soomaaliyeed ku hadla dad waxaan nahay entrepreneur ah maskaxda waa inay shaqaysaa intuu xoogga shaqayn lahaa dadka Maraykanka jooga fursadan iyada ah ninkan Marookaanka wuu gartay inuu fursadan $6,656 soo aan alaab haynin aanan waddanka deganayn inuu ka sameeyo marka waxaan jeclaan lahaa dadka inaan ku booraariyo
ana ii sheeg aan ku dhiirigeliyay inay online business yimaadaan. Haddii aad u baahan tahay casharo ama koorsooyin intaan sii dheer, fadlan nala soo xiriir. We are willing, waxaan jecelnahay inaan ku caawino. Software-kan aan idiin sheegaya waxay also idinka caawinaysaa. Haddii aad software-kan u baahato, fadlan videogan linkiga hoose ka fiiri. Haddii aad linkigaas aad click siiso, aad registration ku samayso, waxay idinka caawin doontaa, waxaad ku heli doontaa discount oo annaga company ahaanteenna aan nalagu tixgelinayo haddii aad xaggaas registration ka samayso. Software la yidhaahdo Zig Analytic waxay idiin caddaynaysaa inay leedahay war ninkan meeshuu alaabta ka soo iibiyey. hadday calaamadan clickta ay saarto, waxay idiin sheegaysaa inay taqaano meeshuu ka soo iibiyey. wuxuu ka soo iibiyey Amazon. Okay, kanna Amazon uu ka soo iibiyey. ninkan the highest sale alaabtan uu iibiyey waa kan dayt aan ku arkayna inuu 13 bisha uu iibiyey. laakiin haddadan waxaan arkaynaa annaga alaabtii aan raadinayna aan daba soconnay oo ahayd alaabtan boldejanka ah oo haweenka ay ku qubaystaan. waxaan arkaynaa in ay xaggan taallo uu ninkan ii sheeg iyadana iibiyey. muxuu ahaa qolooyinkan waxayna leeyihiin Zig Analytic waxayna leeyihiin waan naqaana alaabta ninkan meeshuu ka soo iibiyey. haddii aan click siino, haddii aan click siino waxaa noo caddaanaysa meeshan waxay leedahay okay, this guy meeshan uu ka soo iibiyey waxa uuna ka faa'iiday 538. laakiin haddii aad sawirka si fiican u fiiriso, labada sawir waxa ay ku kala duwan yihiin colorka. Amazon Zig Analytic waxa ay noo sheegayso, nooca ay noo sheegayso waa wax nooc soo dhaweeyey oo laakiin isku modelkii ah laakiin colorka kala duwan. marka waxaan rabnaa inaan helno ninkan meeshuu alaabta ka soo iibiyey. uu 99 iibinaya, 5 xab uu iibiyey. waxaynu leedahay ninkan faa'iidadu uu helay waa $5.38 marka fiigii wax walba laga jaro. laakiin waxaan rabnaa in annaga gudaha u ogolno exactly nooca uu asiga soo iibiyey inaan helno. waa hagaag, aan hore u soconno. wax yar haddaan kusii dheeraado, ninkan wuxuu successfully listing iibiyey 119. waxaana active list u ah oo eBay ugu jirta $1,127. yacni taa macnaheedu waxay tahay ma aha inaad hal xabba soo geliso aad ka faa'iido 6,500. waa inaad gelisaa ugu yaraan 10,000 ama 100,200. faa'iido badana xagga ka arkaysaa markay waxaas meesha kugu jiraan. moo agado moo ay faa'iido ay ii sheeg xaggan kuu soo istaagto. okay, hagaag aan dib u noqonno, aan ogaano alaabtan meesha ay ka timi iyo xagga ay taallo. sawirkan si fiican noogu fiiri magacan. waxaan darsaynaa ninkan bejkiisaan darsaynaa. hadda xagga hoosaan usoo degaynaa. ninkan waataan ogaanay inuu Morocco joogo, laakiin wuxu uu leeyahay waxaan joogaa Oregon. qofka macmiilka bejkan soo gala, yacni ama customerka markuu bejkan yimaado, meel ay wax u jiraan ninkan inuu Morocco joogo in kale ma kala oga. wuxuu iibsanayaa, wuxuu arkayaa ninkan inuu Oregon joogo. alaabta ay u imaanayso 17ka, maanta waa 14. inay alaabtan ugu imaanayso within 10 days gudahooda inuu alaabtan ku helay xagga. annaga Minnesotaan joognaa, Minneapolis. zibkoodkeena waa arkaysaa. waxayna leeyihiin alaabtan waxay ku imaanaysaa 10 casho gudahooda, within 10 casho gudahooda, because waxaa soo diri doonta Amazon. but I will show you inaan ka hor dhacan diida aan hore u socono. waagaag alaabtii magaceeda waa kan. meelay ka timid ma naqaano, meeshuu Amazon ka soo iibsada ma naqaano, laakiin waxaan raadinaynaa ninkan inuu professional yahay in kale meesha alaabta ka timid. item specification waxaan fiirinaynaa macluumaadkiisa. UPS-kan waa qaadan karnaa, waa ka raadin karnaa, laakiin ninkan wuu noo fududeeyey. wuxuu yidhi brand name-kan waxaa la yidhaahdaa Dillac. okay, kambaniga soo saaray bahashan Ormarical hadda waa naqaan. xagga wuu ka qariyay Dillac Bologna inuu dhaheedeed, laakiin xaggan wuu ka saaray inta wuxuu yidhi kambanigan waxaa la yidhaahdaa, brand name-kan waxaa la yidhaahdaa Dillac. cashirada sida aan hadhow marka aad adiga xataa dropshipping samaynaysid aanan lagu ogaanin meesha wax ka soo iibsato, waxaa jiro koorsooyin aan si gooni u bixinno oo arrimahaas aad ku ogaan karto insha Allah. waxaan qaadan doonaa brand name-kan magaca ah Dillac. waxaa noo caddaaday inuu Zig Analytic-na yidhi ninkan wuxuu alaabtan ka soo iibiyey Amazon
so we need to go to Amazon. Marka Amazon aan tegaynaa, xagga waxaan ku qoraynaa magacii Dilag ahaa. Waxaan ku noqon doonaa pageka ninkii aan raadinaynay. Waxaan soo koobi garanaynaa titlekiisii. Waxaan imaan doonaa Amazon pagekiisii oo Dilag Polonia. Sababta aan sidaan u samaynayno waxa ay tahay Amazon qofka marka uu alaabta gelinayo magaciisa ayuu ka hormariyaa ama magaciisa ayuu dhexda geliyaa. So automatically Amazon will track that name, magacaasay track garanaysaa. Shaygii ninkan uu lahaa ayay bannaanka keeni doontaa. Let's go forward. Aan ku dhufano research. Waa hagaag. Kan uu u dhow yahay, it shows $93. Ninkan wuxuu iibinayay 99. Ma u malaynaa inay macquul tahay. Baalkan iska dheeray waxay raali noqdaa. Marka hoosaan u soo degaynaa, weli waa raadinaynaa. Also haddaa arkaysaan meelahan yani alaabahan sida loo kala iibiyo waa jungle scout. Waxay noo cadaynaysaa qofkan maalin walba inuu 96, 25 inuu iibiyo qofkan. Qofba intuu iibiyo noo sheegaysaa. Marka waxaan raadin doonaa ninkii odag ahaa alaabtiisii. Sawirka waa haynaa, sawirka waa noocan. Kambaniga waa ii sheeg wuxuu ahaa Dilag. Waa inaan helnaa kambanigaas si aan asna suuqa aan ula wadaagno, aanan dhibaato keenin. Waa hagaag. Here go. So automatically hadda waa aragnay ninka waa kan kambanigii Dilag. Alaabihii wuu iibinayay. Titleka oo ayuu kala wareejiyey, laakiin is okay. Alaabihii waa kuwan. Waa ku dhufanaynaa. Waxaan ku dhufanaynaa titlekan xaggan ah si uu noogu soo baxo. Annagana u ogaano more deep sida ay wax u jiraan. Waxa uu iibiyey 29 xabo ayuu ninkan iibiyey. Feedback Amazon uu ka helayo maalin walba wuxuu iibiyaa 4 xabo. Monthly revenue ninkan Dilag company wuxuu ka sameeyaa 28,000. So arrinkaasna Amazon yani waa shiradoodana waa isku dhex wadi doonaa insha Allah, maadaama annagana aan meeshaas lacag ka samayno. So jungle scoutna waxayna tusinaysaa ninkan alaabtiisa sidii uu seelka u yahay. The highest day uu gado waxay ahayd February 27. Wuxuu gaday 117. So hadafkeena maanta cashirkeena ma akaas inaan idinka saaran diida. So kambaniga ninkii Dilag waa kan, alaabtii nooceeda waa tan. Ninkii eBay alaabtuu iibinayay waa isku mid. 99.62 ayuu iibiyaa, ayuu ninkan eBay ku iibshaa. Amazonna waxayna leedahay alaabtan waa 69.99. Okay, so waa inaan fahanaa macnaha meesha u jiro. Deliverygana waxaana leeyahay Prime ayaa waxaa kugu keeni doona overnight 7 AM to 11 haddaad u baahato. Laakiin waxaan rabnaa inaan ii sheeg within regular haddaa ka dhigato, haddii regular markaa dalabka hadhow casharada xigaan aan sharaxi doona. Waxay ku imaan doontaa within 5 to 7 days. Hagaag, maadaama aan helnay ii sheeg alaabtii, waxaan tegaynaa faa'iidada ninkan uu ka faa'iido alaabtan markuu Amazon ka soo gado uu eBay geliyo. wax kaliya aad samaynayso waxay tahay titlekan aad ii sheeg si farsamo leh aad u habeynaysaa sida ninkan uu habeeyey. Sida ninkan fiir magacii kambaniga uu ka saaray, titlekii uu habeeyey. Titleka markuu habeeyey, sawiradan uu soo qaatay, macluumaadkan wuu soo qaatay xagga ku qoran. Macluumaadka xagga ku qoran wuu soo qaatay kulligoodba sida xaggan aad ka arkaysid. Macluumaadka waa kuwan mujidaa. Macluumaadka dhan wuu soo qaatay, xaggana ku soo wada qoray. Laakiin waxa uu iloobay inuu ka saaro Dilag, yani kambaniga brandka inuu ka saaro si aan loo track garaynin. Laakiin yani arrinkiis waa u shaqaynaysaa. So marka waxaan rabnaa inaan ii sheeg aan topic inaan ka baxaan diidaya. Ninkan wuxuu alaabtan ku soo iibsadaa 69.99. alaabta waxaa haya kambaniga Dilag la dhaho. Marka Dilag kambaniga la dhaho alaabtan haya, ninkan marka xagga 69.99 bay tahay. eBay wuxuu registration ka sameeyey 99.62. 5 pieces uu iibiyey. Dad baa waxaa jecel inay eBay ka iibsadaan, ma rabaan Amazon inay ka iibsadaan oo yani aan Amazon aaminsanayn oo eBay aaminsan. So waxaan rabnaa inaan ogaano ninkan 69.99 wuxuu iibiyaa 99.62.
what's faa'iidada ku jirta waxaan imaanaynaa calculation okay item sold 99.62 ayaa lagu gadayaa oo ninkan ku gadayaa oo ii sheeg Morocco jooga laakiin dahay organ baan joogaa wuxuuna ku soo iibsanayaa 69.99 waxa eBay fee waxay kaa qaadaysaa 12.9% iyo fixed fee waxa loo yaqaano oo 0.3 ah waxay isku tagtay eBay lacagaha feega ay kaa qaadi doonto $13.15 marka la isku wada daro 69.99 iyo 13 waxay noqotay $80.70 total profit alaabta ninkan waxa uu faa'iiday waa $16.48 asigoo oo jooga waddanka Morocco maasha Allah ilaahay ha u badiyo I believe Morocco dad muslimiin inay ma jeclaan inaan yani aan gudaha u galo laakiin de waqtigaa saas yeelay so nasiibkiisa saas noqosa igu soo aaday marka waxay ay muhiimadda mudan tahay 16.48 $16 ayuu ninkan faa'iiday inuu alaab xaggan ka soo qaado title oo xaggan store ka samaysto uu inta ku iibiyo uu faa'iido shaygan keliya uu ka faa'iido $16.48 waa hagaag aan ii sheeg waxaan jecelnahay videogan inuu maraayo wax ka badan 25 daqiiqo waxaan ku sii wadi doonaa koorsiga xiga fadlan la soco aan jecelnahay inaan macluumaad fara badan iyo ii sheeg dropshippingka waxaan isku dayanay ilaa 3 course inaan ka samayno aad nala socotaan insha allahu tacaala aad nala wadaagtaan wixii aad kale aad u baahataan inaad ka faa'iidaystaan waxaan inaad dadka jooga Africa ama dadka ama Europe jooga ama Asia jooga ama even United Mareykanka jooga oo ii sheeg yani aan arkayna fursadan inay indhaha fursadan u furaan maadaama ay fursad qaali ay tahay $1 oo aan alaab aan adiga gacanta ku hayn kugu soo galaa waxa uu ka qiimo badan yahay adigoo ii sheeg maalin walba alaab gacanta ku hayso aad kira bixinayso oo wax walba aad bixinayso aad iibiso ayuu ka qiimo badan yahay halkaas $1 waa hagaag waa wadani fadlan la soco qaybaha kale waxaan leenahay aniga iyo tiimkayga wadani group maalintu ha idiin wacnaato Ramadaan Kareem insha Allah taala khayr baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum